magaalada muqdisho iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa loola dagaalamaya al-shabaab maalinba waxay keenaan jiho iyo qaabab cusub oo dadku iyo goobaha muhiimka ah ku weeraraan waxaase dabarjab ama dhibaatooyin niyajab ah qaba oo ka tabanaya mas'uuliyiinta qaranka iyo kuwa kale ajaanibta ay la shaqeeyaan ciidamadii qaranka u difaaci lahaa ama dhalinyaradii shabaab qori u qaatay inay la dagaalamaan oo dalkan iyo dadkan ay badbaadiyaan ciidanka gaashaan waxay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya inkastoo la sheego inay hoos tagaan taliska Mareykanka oo Soomaaliya ka caawiya howlgallada ciidamada waxaa lagu tiriyaa inay yihiin ciidamada ugu tababarka iyo tayada wanaagsan hase yeeshee in badan oo ka mid ah dhalinyaradii ciidankaasi ka tirsaneed waxaa la sheegayaa in la eriyey oo muddo sanadaha ay shaqo la'aan yihiin dowladda Soomaaliya ilaa hadda aanay ka jawaabin sababtii loo eriyey boosishino ama boosas kalena aysan helin waxaan wareysanay mid ka mid ah dhalinyarada 100 kor u dhaafaya oo shaqooyinkii muhiimka ah ay hayeen oo gaashaan qayb ka mid ah ahayd la eriyey waxay ka sheekeynayaan sababihii iyo daruufihii keenay in shaqadaas ay waayaan waa dhawahay horta tabashada waxay ku saabsan tahay anaga rag badan oo 100 kor u dhaafayo in muddo ah dowladan baalkii u shaqeynayeen aan ahay rag ciidan ah oo dhan walba iskugu jiro aqoon iyo ciidan ahaan ba iskugu jiro raggaas tababaran oo in muddo yani shaqeynaya ayaan ahayn waxaana ka tirsaneen ciidanka la yiraahdo gaashaan ururka gaashaan oo tagaayidin ma garat waa garta marka sidaa ogtahay waa ururkaasi wuxuu hoos tagaa qola ajnabiya cadaan oo la yiraahdo Mareykan marka niyow meesha waxaa ka socoto waxa yani ku takrifal awoodeed dowladda aysan warka haynin qofka yani ciidanka hadduu dhaawacmo xuquuq ma lahan oo banaanka ayaa loo soo saaraa haddii uu caafimaad qabo asoo shaqeynaya intaas amnigiisina cid damaana qaadaysa aysan jirin haddii loo arko yani ama ninka nin cadaan uu dhibsado shaqadiisa sidaas ku waaya ma garat waa garta marka rag dhowr sano meesha ka shaqeynaya qaar baaba 10 sano ka badan ka shaqeynaya oo haddana banaanka joogo maanta dowladdiina amnigooda aysan ka faaran qaadin ururka ay ka tirsanayeen banaanka uga baxa la yiri magaalada muqdisho aan uga shaqeysan karin si shacabnimo dowladdiina aysan shaqo kale u dirsanin oo ayagoo tababaran xaafadaha fadhiyaan ma garat marka sababta maxaa weeye waa shaqadii aad qaban jirteen u weyseen niyo wax sababa haddaan anaga kulley shaqadayna aan ku weynay qaladaada anaga aan sameynay ma jirto aniga hadda kula hadlayo wax kalaba aan geystay aan shaqadayda aan ku waayay ma jirto nin cadaan ah ka heli waayay yani nin cadaan ah meesha yimid shalay iyo daraado maalin yani doorka biri u dambeeyay shaqada soo galay waxa lagu leeyahay uu ka heli waayay hebel wuxuu yiri ninka shaqadiisa kama helin abbaxa marka anaga yani waxaan isku arkaynaa rag qarankooda u shaqeynaya inaan nahay imaan aan aaminsanay inaan rag caloosha u shaqeystayaal oo dowladooda yani aan ka tirsaneen oo ajnabi hoos taga ma garat laakiin maxaa keenay in la yiraahdo shaqadiinii waa laga heli waayay ma waxaad diideen amar idin siiyay ma shaqada ayaa sidii ahayd u qaban weyseen ma waxaa jira dhibaatooyin kale waay sababtu maxaa weey kulley niyo sidaa ogtahay ninka askariga markii uu askariga soo galo wuxuu bareeray waa in la amro oo lagu shaqeysto wadankiisa inuu wax qabto oo soo galaa waana go'aan adag oo ninka ragga uu qaato markuu askari noqonayo marka ma jirto waxa mardiida oo ciidanka dhankooda ka imaan karo marka kulley waa nin qamri inuu soo cabo cadaan ah oo go'aanku asaga qaatay yani wax kale ka dambeeya ay sii jireen dhammaantiinba ma isku si ama qaab ayaa shaqada idin kala soo eriyay mise waa kala bedelneedeen sababaha aad ku soo baxdeen horta niyo 100 kor baan u dhaafeynaa marka sababaha way kala duwan yihiin yani sababaha badanaa oo sababaha u badan yihiin waa halkaas nooc oo ah nin gaal ah inuu yani damco inuu asaga soo rabo kula dhaqmo dadkan ajnabiga badanaa waxay u badan yihiin dad oo yani ayaga oo isla weyninka uu ka buuxo ama yasitaan dhanka midabka ah ama dhanka diinta ah si qaldan oo kula hadlaaya markaa tiraado iga leexan xafiisku tagaa wuxuu leeyahay ninka ilinka laga saaro dhankaas u baneed xagga meesha ka soo wada bax magaran tusaale maxaa dhibsateen maxaad noo sheegi kartaa waxyaabihii keenay inaad dhibsataan aad falcelin samaysaan maxaa wey yaa horta sidaa ogtahay anaga dad muslimaan nahay tusaale ahaan salaadii diintii yani habaqkeena islaamnimada ahaa iyo midabkeena dadka wada dhibsanayaan ninka in faataalayo waa qamri inuu kasoo dargo ku imaanaya adoo tukanaysid suuraba kula dhaqmaya suuraba kula hadlaya oo kugu xadgudbaya diintaadii hadalkaagii yani dadnimadaadii markuu gafa xalay wariya iga sik hadaa tiraada ruqsaan hadaa ruqso aan noqotidna yani amnigaagina iska faalqaadaysa ma jirto dowladda sidaasay kugu dayacday يعني waxaan la mid noqonaysaa nin cadowga shal ula dagaalay in ay dikaarkin laga qaado hubkina laga qaaday leeyahay or banaanka loo soo saaro leeyahay ninkaas banaanka ku jira ma garan
ciidanka gaashaan waxay ka mid yihiin ciidamada Soomaalida kuwa ugu tababarka iyo tayada wanaagsan waxay ka mid yihiin ciidamada fursadda u helay inay tababar dibadda waliba Mareykanka ayaa lagu soo tababaray in badan oo kamid soo faa'iideystay luqad bartay tababar iyo tayo kale oo dheeraad qaba marka ma waxa dadka Soomaaliyeed iyo dawladdiiba u sheegaysaa ciidankii oo ay Soomaalidu inta ka aaminsaneed waxay la kulmayaan dhibaatooyin in badan oo kamidna waa la eriyay oo dibad joog way si wanaagsan waa dibad joog ayagoo waxay isku jiraan rag dhaawac oo dalka u soo dhaawacmay hoteelada ku dhaawacmay banaankii burkii gobolada ku soo dhaawacmay oo habeen 8 saacadood diyaarada ugu soo qaaday meedkoodii dhaawacday magaalada Keenay waxa isku jiraan rag ayagoo caafimaad qabo qarankooda u shaqeynayay oo xaadir oo taagan oo tababarkii juhdiga la soo geliyay dalkooda inay ugu shaqeeyaan rabaan wiilal cadaan oo Mareykan oo yirkameel ilanka laga saaro marka waxa uu sheegay shacabweynaha Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyaba in hay'adda nabadgelyada qaranka ergaas ku tagrifashay khaasatan ururka gaashaan oo ku tagrifalay awood loo sheegtay ay dikaarka laga qaatay laba wiil cadaan ah banaanka inuu ay u soo saareen ay dikaarka meesha uga reebtaan ilanka yiraahdaan soo banaanka u bax magarad markii ay inta idinku dhacday kadib ma u soo laabateen nisa ama hay'adaha kale dawladda oo ma ku wargelisay cabashadiina hay'adda nabadgelyada ayaa hooyada aan ka tirsaneyn hooyigii yani aan ka soo askumnay ama aan soo qoranay markaan dib ugu laabanay anaga oo badan ragga badan oo si u badan yihiin markay meesha ka soo baxaan toos waxay waadaan hay'adda nabadgelyada kama helno wax oo aqbalaad ah haddii gaashaan ka timid yani wax shaqaan kuma tirsanayso banaanka ugu dayacaysa ilinkana kama soo gali kartid oo gudaha xitaa ma gali kartid banaanka hore lagu celinayaa sababta aqoonsiga aad ku shaqeynaysiina waa banaanka waxa laga soo reebay raboorka midaan adigoo lagu yaqaan oo lagu ogyahay cid wax ku qabanaysa si jiilan qof walba wuxuu ka dambanaya ninkaas cadaanka wajigiisa oo laga cabsanayo ma garad Mareykanka oo Soomaaliya dhinaca amniga ka taageera iyo meelo kaleba waa wadan weyn oo dimuqraadiyad xoog leh ka jirto waa wadan hadda ugu dambeysay warbixinta ay soo saareen bay aad uga hadlayaan arrinta musuqmaasuqa iyo xadgudubka dib u habeynta ciidamada loo geysanay ama ku tagrifalka awoodeed marka wadan nooca ah ama dawlad noocaas ah oo ciidan Soomaaliyeed oo dhalinyarada tababartay oo lacag gelisay oo xoog gelisay sidee ayay ku dhici kartaa in xadgudubyo yar yar ama is-afgaar laba askari gaartay ama saraakiil iyo ciidan dhaxmartay shaqadii looga eri niyahow dimuqraadiyadda reer galbeedka ayagoo afkay ka sheegaan moogi kuma dhaqmaan dhaqanka iyo caadada ayaga aaminsan yihiin iyo ku tagrifalka awoodeed iyo yani qaabka ayaga ay anaga dhigisitaanka ah ee noola dhaqmaan iyo dawladeeniyo awood yar oo daciif ah iyo magaaladii oo shaqo la'aan ah iyo wadankii amni darro ah waxay uga faa'iideysteen in dhalinyarada ay soo tababareen oo shaqeynaya in muddo ay banaanka u soo saaraan ayna yiraahdaan markaas ay al-shabaab banaanka isku arka ayaga hub la'aan ah dawladda Soomaaliya ay waxba ka taaban weyso hay'adda nabadgelyada indhaha ka fiirsato Mareykanka dimuqraadiyadda afku ka sheega ay kuma dhaqmo ku tagrifal awoodeed oo dhan dhaqaalaha iyo dhan yani wadankii oo xaaladiisa aad u daranta uga faa'iideystay dhalinyarada Soomaaliyeed banaankeena wada taagsan yihiin rag badan oo tababaran oo ciidan oo saraakiil ah wala wada yaqaan wala wada ogid dawladda midna markaatida ka tahay meel kasta iyo degmo kasta xamar ka tirsan waxa joogta 3 iyo 4 dhalinyaro bagmuda oo gaashaan ka soo baxda tababaran oo caafimaadkooda uu taan yahay magarad marka laga reebo nisa ma jirta hay'ad kale oo dawladeed sida xafiiskii ra'iisul wasaaraha madaxtooyadii xubnaha kale ama baarlamaanka oo cid wax ka gasha doodina oo aad isku daydeen in la wadaagtaan ila waqtiga horta dawladda nabadgelyada iyo boolis iyo military ciidamada kala baxaan markii asluub lagu daro afartaas waay marka anaga waxaan nahay laan gaaro nabadgelyada baa la yiraahdaa nabadgelyada markaan u tagnay banaanka ee noo saartay military-na lambar loo raadsan karo waxa lambar ugu raadsan karin askari soo tababarna oo gaashaan ka soo baxay inaad tahay laguma qaadanayo inaad qarisid oo aad shibtaada sheegtid oo aad waxba u sheegin kadibna aad si shacab ah ku gashid oo tababar sanada aad soo qaadatid oo hadhowna aad military koobay meesha dawladda kala qabsatid waay adigoo sidaadii ah tababaran xirfadaadii shaqadii intaas muddo aad soo qabanaysid dawladda xafiis kugu soo dhaweynayo kugu qaadilayo ma jirto ma garad hay marka cabashadeena dan kasta gaartay maxaa la leeyahay ciidanka xoogga dalka gaartay cid wax ka qabata lama military waxay gaartay nabadgelyada hay'adii gaartay markaasi ay ka tahay barqacada banaanka noo saareen wax jawaaba dawladda Soomaaliya meeshaas dadka laga soo saaray cid kaliya wuxuu qaban jiray waxa ninka Sembolosh la oran jiray oo taliyaha hay'adda nabadgelyada ahaa raggaas ayaga ahaayo waaga Sembolosh wixii ka horeeyay soo baxay Sembolosh wuxuu sameeyay
يعني ciidamay lambar siiyay waxayna ka tirsan yihiin booliska wixii ka dambeeyay taliyaha hay'adda nabadgelyada Sambolosh ma jirto askari gaashaan laga soo dayacay oo dawladda ay qaadatay ma garan waa garta marka magaalada doobinkiin boqolaal ay furu dhaafayaan ayagoo sidoo tababaran amnigoodi ka cabsanaya banaanka soo bixi karin guryaha hooyooyinkooda ku jiraan in banaan soo bixi kara oo si jirin inkastoo cabsanaya ma garan marka ma bixi kartaano ma idin suurta galeysana wadanka ka baxdaan ma idin suurta galeysana in shaqooyin kale oo hay'adaha dawladda oo rayidka ah aad gashaan miyaad awoodi kartaan inaad idinku dhaqdhaqaaq kala sameysaan aniga hadda kula hadlayo ma dhoofi karo xitaa ma aadi karo hadii yani aan isku dayo inaan dar dibadda aado xitaa ma aadi karo ma garat baasabooradiiya naga haystaan cid silaabo qaadi kartaa ma jirto qof kasta waxay saareen madow qalin madow bay saareen waxay ka dhigeen inuu qof qalad gala yahay oo xun yahay meel loo dhoofi karo ma laha shaqo la raadsan karana ma laha shacabnimada kuma shaqaysan karno meel aan gali karno xarun dawladeed aan gali karno ma laha xarunta maanta shaqo raadsan biris waxa lagu leeyahay maanta waa lagu aqbal biris waxa lagu leeyahay gaashaana soo martay uma aqbali karno marka naga raali noqo ma garat marka taas waxay noo muujinaysaa in wali rakaata ayaga ay nagu hayaan oo aan shaqo walba raadsan ay rakaata ay nagu sameynayaan ma garat way marka maxaa weeye baaqa iyo codsiga aad u jeedinaysaa madaxda ugu sareysa dalkan waxaan ka codsanaynaa dhammaan hadayna maqlaan hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo yani golaha baarlamaanka ama ciidamada dawladda ee dhammaan waxaan ka codsanaynaa in dhalinyaradan tababaran ee ciidanka ah ee commandosta in muddo soo shaqeynayay mabda'oodu uu yahay mid shalan ay usoo qorteen dalka inay wax u qabtaan caafimaadkooda u taan yahay in fursadii shalayta ay wadankan ay usoo raadsadeen nin walba gobol buu ka yimid waxaan codsanaynaa fursadii shalay aan u nimid muqdisho waa inaan dalkan u shaqeynay ahayd in dawladda ay dib fursadeena noo siiso wax kalada maanan gelin wax xumaana maanan sameyn burcad ma nihin shabaab ma nihin dad waxaan nahay ciidan ah oo aad u tababaran dawladda inayna dayicin ee wax nala qabataan rajeynayna insha allah mid ka mid ah dhalinyaro 100 kor u dhaafayo oo ka tirsanaa ciidanka gaashaan oo sheegay in shaqooyinkooda laga soo eriyay waxay dalbanayeen in dib loogu celiyo shaqada